waxaa si rasmi ah u soo gaadhay magaalada Addis Ababa xarunta waddanka Itoobiya waftigii Somaliland ee ka qayb galay hadallada ay Somaliland la yeelanayso dalka ay jaarka yihiin ee Soomaaliya kuwaas oo ka qabsoomaya waddanka Turkiga waftigan oo hoggaan wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar haddana ah wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland isla markaasna ay yihiin wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland Xirsi Xaali Xaaji Xasan iyo waliba wasiirka wasaaradda shaqada iyo bulshada Grad sidoo kale waxa uu kamid ah gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada iyo guurtida Somaliland oo uu weheliyo gudoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee arrimaha dibadda xildhibaan Xuseen Axmed Cige waxa isaguna waftigan xubin ka ah wasiirkii hore wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Jamhuuriyadda Somaliland Cabdilaahi Cismaan Geeljire iyadoo ay waftigan weheliyaan oo ay la socdaan wafdiyeeno ka tirsan telefishinka qaranka Somaliland waxaana ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Bole International Airport سفير ku-xigeenka safaaradda Somaliland ay ku leedahay waddankan Itoobiya ayaa la salaad diiriyay isla markaasna ah kusimaha safiirka Somaliland sidoo kale waxa iyaguna halkaas ku soo dhaweeyay saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya iyadoo waftiga loo galbiyay hotelka looga diyaariyay caasimadda waddanka Itoobiya magaalada Addis Ababa halkaas oo islaaca goor xilliyada dambe ka bixi doonaan isla markaasna uu shirka wada hadalladu si rasmi ah u furmi doono maalinta Axadda ah wada hadallada